الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeen waxaan salaamaa maamulada dugsiyada aan u jeedo dhammaan aan magacyadooda hadda halkaan ku soo koobi karin guddiga isboortiga degmada Balcad iyo marti sharafka kale iyo bahda saxaafadda maanta barnaamijka isugu nimaanay waa barnaamij lagu horumarinayo bulshada waa wax looga baahnaa degmada goor hore inay ka bilowdaan waa isdhexgal bulsho kuwaasoo lagu dhisaaya jiilka soo koraya maskaxdooda iyo jirkooda intaba ayagoo laga faa'iideysanayo activitieska ku jira iyo awoodaha dheeriga ay ku jira si hadhow ay waxbarashadu ugu fududaato in dhankan sportiska lagu horumariyo aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa kalimadeeda waxay ku soo koobnaa doonaan dardaaran aan u dardaarmaaya dadka ka socda ama madaxda ka socoto dugsiyada waxa loo soo xulaaya iskuulada waxa lagu tuumaa akhlaaqdii iyo aadaabtii inay weli ka jirto dhanka waxbarashada inay jirtaa weli lagu tuumaa marakacaas laydin marakacaayo iyo tuhunkaas laydin tuhmaayo yaa waxaana laga rabaa inaan ka dhigno wixii wax jiro oo sax ah oo halkii laga horumarinayo bulshada maadaama ay tahay waxbarashada in bulshada la tuso dhanka sportiskana in dugsiyada ay ka qayb qaadan karaan oo ay diyaar u yihiin oo ay ugu firfircoon yihiin inay horumariyaan sportiskooda iskuuladan waxay ka kala yimideen dugsiyada degmada iyo kuwa ku hareeraysan degmada oo tuulooyinkay ka yimaadeen waxaan filaa in dhammaan dadka ardayda laydii soo xulay inay noqdaan ardaydii joogtay dugsiga ay liiska wasaaradda waxbarashada ku jira hal arday ah hadda sambal ku aragnay waana ku dhex jiriyey liiska lay soo gudbiyey dugsiyada waxaan rajaynaa maamulada si gaar ah inay u soo dardaarmaan ardayda ay soo dirayaan maadaama ay ka qayb qaadanayaan isdhexgal bulsho ciyaar ay ka qayb qaadanayaan ciyaarta dhexdeeda wax kasta ka dhici kara inay marka hore la soo dardaarmaan ay soo baraan dibishiliinka aadaabta akhlaaqda ixtiraamka iyo kala dambeynta dhexdooda inaysan isfaaruqin ciyaarta laftirkeeda fashil oo ku imaana haddii mid ka mid ah tartamayaasha ama ka qaybgalayaashu ay dhexdooda iskhilaafaan laftirkeeda waxay keeni kartaa in fashil uu yimaado iyo in kooxdaas laftirkeeda guuldare ay la kulanto kulley dugsi kasta oo guuleysta waxay farxad u tahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Balcad oo dhan ayay sharaf u tahay waana si gaar ah bahda waxbarashada haddaanahay wixiina laga filayay waana ka fiicannahay diyaarna waxaan u nahay inaan ka qayb qaadano aan bulshada tusno in wax lagu tartamo waxa ugu qiimaha badan inuu yahay sportiska inaan bulshada tusno na diyaaraan u nahay waana ka qayb galaynaa waana u diyaarsannahay waana soo dhaweynaynaa kulley waxaan rajaynaa ardayda la soo diraayo in dhigooda kale ay ixtiraami doonaan kulley 54 iskuula degmada ka shaqeyso wax ka dhigto hada 16 iskuula la sheegay sanadka dambe waxaan rajaynaa 50 iyo dhowrkaas iskuul inay soo wada haleeli doonaan insha Allah kulley maadaama hadda bilow markii labaad inuu yahay rajaynaa bilow inuu maadaama uu yahay hadda la balaariyay sanad dambe waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay soo maseeraan dugsiyada kale ay dhammaan ay ka soo wada qayb galaan oo aan xoojino wuxuu ka qayb qaadanaa sportiska nabadda ayuu ka qayb qaadanaa haddii bulshada dhexdooda ay is aaminaan oo isla ciyaaraan dhexdooda waxaa laga baranaa saaxiibo cusub iskuulkan beri wuxuu baranaa iskuul cusub uu baranaa arday cusub uu baranaa taasna waxay keenay inay abuurantay
jawi kala oo saaxiibtinimo ah inay abuurantay ayay keeni kartaa waana rajaynaa inay guul noogu soo dhammaan doonto waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh